aroos dhifi naadira oo ay isku calmadeen wiil iyo gabar Soomaaliyeed oo dhagahala ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. dhacdadan ayaa waxa ay noqotay mid soo jiidata dareenka bulshada isla mar ahaantaana dhiirigelin hor leh abuuri karaysa. haddaba arintaasi waxa warkan ka diyaariyay wariyahayaga Cabdirasaaq Xaaji Suleymaan oo goobjoog ka ahaa munaasabadda arooskaas. iscalmashada lamaanuhu maaha arrin uguba ee waa arrin soo jireena balse arooskani waa mid dif iyo naadira. cabdifataax mubaarak ismaaciil iyo rihaam ibraahim cashuur waa lamaane iscalmaday noloshana wadaagay kuna faraxsan guurkooda xalaasha ee ka dhacay magaalada Muqdisho. markii ay goobta ay soo gaadheen caruuska iyo caruusadii oo gamcahays haystaa ayaa mar kaliya jawigu waxa uu noqday sidan, iyadoo lagu soo dhaweynayo sacab iyo mashxarad aan kala joogsi lahayn. dadka kale barbaarta gaashaaman ayaa iyaguna goobta ku soo bandhigaya ciyaaraha kala duwan ee ay ku soo dhaweynayaan cabdifataax iyo rahiima. cabdifataax oo aan fariimo qoraaleedyo aanu ku sheekaysanay ayaan dhowr su'aalood ka weydiiyey dareenkiisa, waxaana uu ii muujiyey dareen farxadeed ee noloshiisa uu ku dhistay uuna rajaynayo mid waarta in ay noqoto. cabdifataax ayaa waxa uu ii sheegay in ay rahiimo isaga isfahankoodu u ahaa wada sheekaysi fariin qoraal ahaa laysuna marinayay social mediaha. taax mubaarak iyo rahiima ibraahim waa laba qof oo aad u dayar maqalkana naafaka kuna nool magaalada tani Muqdisho. waa gabar aqoon-yahanada oo wax baratay dhagahana naafaka, waxaana ay wax ka baratay mid ka mid ahaa jaamacadaha magaalada tani Muqdisho. kasoo qaybgalayaasha xafladda ayaan waxa aan wax ka weydiiyey sida ay u arkaan arooskan noociisu ku cusub yahay ee ka dhacay magaalada Muqdisho, waana kuwan qaar ka mid ah oo dareenkooda muujinaya. inaan khayraanta iskuursana waan hambalyeynaya. aroos noocana waan arkay dhowr jeer baan arkay, laakiin waa aroosyada iska dhifiyay naadirka ah ee dhaca. anigu wax kale odhan maayo, waxaan leeyahay waan u duceynayaa un arooska iyo aroosada. waxaan leeyahay barakallahu fiikum barakallahu calaykum jama'a bainakum bikhair. aadna waan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo arooskan caawa ka dhacaya hotelkan. waana runtii aroos aad iyo aad u cajiiba oo laba qof oo labadooduba maqalka ay ka dhaawac yihiin inaan caawa ka soo qayb galo. waa markii aniga igu horeysay runtii, laakiin aad baan u faraxsanahay runtii aad baan u faraxsanahay. dareenkayga aad u faraxsan yahay, waana faraxsanahay maasha Allah, waana ku faraxsanahay cabdifataax iyo rihaam. waxaa leeyahay hambali hore u socda lagu daydo. arooskii cabdifataax iyo rahiima ayaa waxa uu ku soo gabagaboobay si nabada iyo jawi degan. iyagoo faraxsan ayaa waxay gamcaas qabsadeen una caraabeen hooygii lagu hoynayay uu ka dhacay aroosku. Cabdirasaaq Xaaji Suleymaan, warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.